aflax waa mashruuc waxbarasho oo ka hirgalay deegaano iyo degmooyin ka tirsan Mudug iyo Galgaduud kaas oo waxbarasho bilaash ay ka helaan ubad Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 600 arday isla markaana isugu jira aqoon danyar iyo dadka deegaanka. waa mashruuc ku tiirsan tabarucaad iyo dhaqaale ay iska ururiyeen culimo qurbajoog iyo daljoog u badan reer Galmudug. mashruucan ayaa muddo ku dhow 3 sano ka shaqeynaya deegaanada iyo degmooyinka Budbud, Ceeldibir, Wisil, Xere Dhagaxley, Ceel Guula, Saddex Iglo, Bandiiraley iyo Galansoor. kulan yabo dhaqaale loogu sameeyay mashruucan ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo kaas oo ay ka soo qayb galeen culimaawidiin, ganacsato iyo odayaasha dhaqanka. Macallin Maxamed Macallin Abshir oo madax u ah mashruucan waxbarasho ayaa faahfaahin ka bixiyay nooca waxbarasho ay ka wadaan deegaanada iyo ujeedka kulankan. runtii mashruucan xilliga aan bilownay iyo xilligan 3 sano waxa ka dhiman wax bil ka yar. sagaalkii bishii sagaalaad 2017 ayaa Budbud laga furay. isla sagaalkii isla 27 bishii sagaalaad laftigeedana Wisil baa laga furay. hadda waxaa ku jirnaa bishii 8aad oo dhamaad ah. bisha sagaalaad sagaalkeeda markii la gaaro 3 sano ee Budbud uu ka furnaa isla bisha 3 sano ee Wisil ayaa ku dhamaatay. 3 sano annaga markii aan bilaabaynay ma aanan ku xisaabtamayn runtii tuulooyin badan inaan gaarsiino. waxaan is oranaynay bal Budbud iyo Wisil bal dhowr sano hal la wado ayaga ha lagu mitido. way adag tahay mushaar joogto ah oo mucallimiin la siinayo dawladna aysan bixinahayn hay-adana aysan bixinahayn in lagu wado mashruucan. way adag tahay labadaas yuusan nala dhaafin. annagoo sidaas waxa weeyaan runtii iska dhaadhicinay camalkan waa camal mubaarak oo khayri ah, fatxi min Allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr badan oo xaggiisa ka yimid. dad badan baa istaagay oo u qiirariyooday $10 kuwa isku qora iyo kuwa dhowr boqol isku qoraba. waxaan helnay runtii dhiirigelin mucallimiinta kafaaladeeda ah. dawlad kamaana helay, hay-adna kamaana raadin, laakiin dadkii waxa weeyaan deegaanka runtii asalka u ahaa ayaa aad u dhaqnaday dibad iyo daakhil. markay bilowgii horeba ay arkeen gurmad fiicanna sameeyay iyo qof allaal iyo qofkii khayr jecel. waxay gaartay markaa laamiga markii Galansoor laga soo bilaabo Bandiiraley iyo Saddex Iglo xagga markii la aado degmooyinka iyo tuulooyinka meesha ku qoran ilaa 8 bay hadda ka furan yihiin. waxaa ka faa'iideystay ilaa haddana ka faa'iideysta arday 590. hadda waxbaaba ku darmay 600 meelahaas ah. qaarna quraanka ay dhameeyeen gabdho iyo wiilalba iskugu jira, qaarna bilaha soo socda ay dhameynayaan. ganacsato, aqoon-yahano iyo odayaal dhaqan oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay inay muhiim tahay ka qayb qaadashada dadaalada waxbaridda ubadka soo koraya, waxayna ku baaqeen in laga qayb qaato tabarucaadka mashruucan. runtii waxaas oo khayr ah oo socda oo wanaag oo sharaf ah dawladii ma taakulayso, hay-adina ma taakulayso. waa jeebka dadka qaraabada iyo ehelka la ah, dadka aad u jeedeen tuulooyinka u dhashay walaalahood maaragta kuleynaya. sheekuna uu abaabulay iyo intii la shaqaysay mashruucaas ku socdaa. marka runtii inaan wax ku darsano oo ka faa'iideysano waa khayr socda. inta aad xataa fadhidaan cibaadad ku jirtaan. dhalaankii gobolka oo wax baranaya oo waliba deegaanadoodii iyo tuulooyinkii loogu geynayo waliba si bilaash oo free waa arin aad iyo aad loogu farxo mudan in la dhiirigeliyo, la garab istaago, lagana qayb qaato. arrimahan soconayo diiniga inaan ka qayb qaadano. qof walba wax alla wuxuu awoodo oo karaankiisa hadday lisaan tahay, hadday ficil tahay, inuu kaga qayb qaato ayaa waajib nagu ah. biidnillaahi kariim waana ka shaqaynaynaa insha Allah. ilaahay dartiis mashruuca lagu kaalmeeyo
inteeda joogtaan aan ka qayb qaadano. suldaan cabdikariin suldaan maxamed maxamuud degal oo ka mid ah dadka taageera xarumahan waxbarasho ayaa ugu baaqay bulshada in la taageero qorshahan waxbarasho si looga guuleysto jahliga. culummo iyo odayaal iyo ganacsatooy meeshaan waxa weeye waa jaanis aad iyo aad aan fursadeedii hadda haysano aan ka qayb qaadano dadka iyagana jahalka in laga bixiyo maadi iyo diinba waa wax aad iyo aad aan ku boorinayo dadka waa faan wala farikamo qodna la yiri galmudug oo dhanna arintaas way u badan yihiin hadda marka waa mahad celinayaa. Saadaq Siciid Nuur, Galmudug TV, Gaalkacyo.